miday saaxiib maanta waxaan rabaa inaan la wadaago sawiraan runtii nolosheena faa'iido badan u leh. Sawiraantan aan kula wadaagi doono waxaan aaminsanahay sawir walba inuu u dhigmo inuu buug laga qoro. Sawiraantan waa sawir oo keliya laakiin sawir walba wuxuu xambaarsan yahay micno aad iyo aad u weyn, micno nolosheena ku salaysan. Sawirka koowaad dhowr sawir weeyaan ilaa iyo 8 ilaa 9 sawir sidaan u malaynayo. Sawirka koowaad waxa weeyaan sawirkan aad halkan uga jeedaan waxaa ku qoran karma, you get what you give. Waxa weeyaan qof qashin meel ku shubaya kadibna qof kale ayuu qashin ugu shubayaa, ugu dambeyn say usoo wareeganaysa isaga ayaa qashinkii loogu soo shubay. Marka sawirkan wuxuu muujinayaa what you release you attract. waxa adigu bixiso unbaad dib usoo jiidanaysaa. haddaa maanta hadal aan wanaagsanayn oo xun dadka aad ku dhahdo waxa laga yaabaa adiguna hadal xun in lagu dhaho. haddaa dadka aadan ixtiraamin adigana laguma ixtiraamayo. haddaa dadka wanaajisid waxay u badan tahay in adigana lagu wanaajinayo. mar walba waxaad samaynayso adiga ay dib kugu soo noqonayaan. haddaa tahay qof mar walba xumaan ku dhaqma adiga ay dib kugu soo noqonaysaa. sidoo kale sawirkan wuxuu muujinayaa haddaa maanta wax baratid ama caafimaadkaaga ku dadaashid beritoole adiga ayuu caafimaadkaa wax kuu taraya. markaa 60 ama 50 aad gaartid adiga ayaa waxay ku xiran tahay wixii aad soo isticmaali jiray. haddaa qof sokorta aad u abi jiray tahay, haddaa qof maxaa la yiraahdaa caalamideed jabis samayn jirin oo yani iska seexan jiray haddaa tahay, jirkaa waxaa laga yaabaa inuu tabardaro ka muuqnaato. so maanta waxa aad beerato unbaad beri guranaysaa. mar walba ka fiirso waxa aad maanta samaynayso. sawirka micnaha wuxuu xambaarsan yahay waa intaa, laakiin sawir oo kaliya weeyaan hase ahaatee micnaha intaas sidaas u badan ayuu xambaarsan yahay. weliba tusaalooyin badan baa loo soo qaadan karaa. sawir kale asaguna waxa weeyaan muus ayaan arkaynaa oo mid waxa weeyaan oo nadiif ah, mid kale oo yara biseel ah, mid kale oo yara bololay iyo mid dhamaaday. waxaa ku qoran marka be humble, you will not stay fresh forever. mar walba noqo mid ku maxadeliya sida uu maanta yahay. haddaad maanta aad caafimaad qabtid qof baan caafimaad qabin. haddaad maanta xurnimaysid qof baa xabsi ku jira. haddaad maanta aad qurux badan tahay sida aad tahay aad xog badan tahay qof baa maanta intaas haysan. marka mar walba waxa weeyaan sida aad maanta tahay ku maxadnaq. inta kaa maqan intaadan fiirin inta aad maanta haystid fiiri. haddaa maanta aad lacag haystid beri sidaan waxaa laga yaabaa inaadan lacag aadan u haysanayn. haddaa maanta aad noloshaadu ay ku hagaagsan tahay waa laga yaabaa berito inaysan noloshaadu sidaas ahaanin. caafimaad xumaa imaanaysa, da' baa imaanaysa, wax badan baa imaanaya. fursadaan aad maanta haystid ma haysan doontid. so maanta ka faa'iidayso oo ka mahadnaq. sawirka isaguna intaas wax xambaarsan yahay. sawirka isaguna waxa weeyaan qalin mid fiiqan oo nadiif ah iyo mid aan fiiqanayn oo duug ah oo dhamaaday oo wasakh ah. marka sawiraantan mid waxa weeyaan uu fiiqan yahay, midna ma fiiqano oo xitaa afku ka dhamaaday, mid kalena waa nadiif oo sida u jeedaan. marka waxaa lagu leeyahay it's easy to look sharp when you haven't done any work. marka aadan wax shaqo aadan qaban way fududahay inaad u muuqanaatid yani qof wax badan qabtay. tusaale fudud baan soo qaadaya. qofka wasiirka ee dowladda ku jira oo madaxda iyo kan beeraleyda labadaba markii inta soo istaajo waxaa laga yaabaa inuu yani qof wanaagsan u muuqdo kan wasiirka ah. halka kan beeraleyda yani duruuf badan oo dhibaato badan ay ka muuqnaato. sida ay tahay waxaa laga yaabaa kan wasiirka oo u muuqda yani qof yani wax badan qabanaya yani wanaagsan u muuqda. waxaa laga yaabaa inuu yahay tuug ummadda dhacayo oo yani lacagahooda. halka kan beeraleyda bulshadu waxay cunayaan cuntada aan 24 saacadood aynu cunayno
isagu ay ku tiirsan tahay yani wax badan bulshadu u qabanaya laakiin aan laga dareemin baa laga yaabaa so mar walba ha fiirinin qofka yani shafkiisa qaabkiisa ha fiirinin ha ku qiimeyn qaabkiisa qofku waa ku qiimeysaa waxa uu gudihiisa ku jira yani minaha u kooban waa intaa qofku waxaa lagu qiimeeyaa waxa gudihiisa ku jira qofna weligaa ha ku qiimeyn aragtida waxaa laga yaabaa in qofka uusan ahayn qofka aad umalaynayso sawirka isaguna wuxuu muujinayaa wuxuu ku tusayaa geed kasoo hoosbaxaya dhagax kadib intuu dhagaxii kasoo hoosbaxay uu noqday geed aad u weyn marka waxaa ku qoran you just grow around them some problems never go away dhagaxaas kasoo qaad inuu u taagan yahay caqabad kan geedkaasi kasoo hoosbaxay inaa adigu tahay kasoo qaad yani caqabadaha qaar waxa uu leeyahay weligood ma baxaan waxaa jirta waxyaaba weyn aadan waxba qaban karin duruufo ama baahiya waxaa jira aadan waxba qaban karin inaad baxdid oo aad noqotid iftiin ama qof guulaystay oo noloshaan meel ka gaaray inaad noqotidna dhagaxaasi uu ka hor istaagan yahay so waxa uu leeyahay dhagaxaasi ama caqabadahaasi ku-anta ku haystaa yani waxay noqonayaan beritoole caqabad adigu ku xoojisa ama caqabad yani waxay noqon kartaa adigu ka dhigta mid adag sida ujeeda geedku markii hore yani caqabad way ka awood badnayd laakiin intuu ka hoosbay ayuu ka dhigay dhagaxii wax qiimaysan lahayn hase ahaatee waxaad moodaaba inuu adkeeyo geedkii caqabadaha qaar way ku adkeynayaan qof adag bay kaa dhigayaan so weligaa ha u ogolaanin in caqabadaas ay ku joojiso way kaa hor istaagto riyadaada iyo yolkaaga geedkan isagana waxaa la yidhaahdaa bamboo tree geedkan bamboo tree la yidhahda hadda kahor baan ka hadlay runtii casharo badan ayaa nolosha ina siinaya xitaa geedkan buug baa laga qoray geedkan markaas sidaan u beertay 5 sano ee ugu horeysa geedkan ma soo baxayo 5 sano yani xitaa lama soo baxayo fiidyar lama soo baxayo laakiin wuxuu sameynayaa inuu dhulka isku fidiyo hidado waaweyn uu baxsado yani sar adag uu samaysto kadib markuu 5 sano uu saas u dhamaysto ayuu waxuu la soo baxayaa fiid buu la soo baxayaa 5 wiil gudahooda markuu fiidkaas saas ula soo baxo ayuu 5 wiil uu kor u kacaa in ka badan 10 fiid buu kor u kacaa marka geedkan markuu 10 fiid kor u kaco ayaa laga yaabaa xitaa maaha geedihii yani hortiisa ay baxeen ayuu ka dheeraanaya wuxuu noqonayaa geedaha ugu dhaadheer caalamka hadduusan ahayn geedka ugu dheer geedkan casharada uu inasina marka waxa weeyaan qofku markuu wax baranayo ama business abuurayo waa qof isdhisaya yani geedkan marka ugu horeysa hidado aad u waaweyn buu la baxayaa dhulku isku fidinaya kadib buu 6 wiig maxaan ku dhahay kor uu kaca oo yani uu noqdaa mid ka mid ah geedaha ugu dhaadheer intaa geedkan naafi aad iyo aad u badan buu leeyahay wadamadan Aasiya iyo meelahaas uu ku baxaa marka geedkan markuu saas yani u soo baxo ayuu noqdaa geedaha ugu dhaadheer taas oo u dhigan maanta waxa aad baranayso businesskani waxa aad sameynaysid hadhaysanin xirfadahan iyo yani dadaalkan aad bixinaysid laga yaabo inay 5 sano ilaa 3 sano ay ku qaadatee hadhaysanin so inta markaas aad samaysid 3 sano 4 sano 5 sano ku qaadato ayaa laga yaabaa businesskaada inuu kor u kaco ama wixii aad qabanaysay inay 6 week ama dhowr maalmood kadib ayaad arkaysaa yani wixii inay ka muuqdaan yani aad arkaysaa dad badan oo yani aad moodayso in markii hore inay ku dhaafeen aad adigu dhaaftay so hadhaysan weligaaga waxaan aad baranaysid iyo businesskan iyo waxyaabahan aad sameynaysid weligaa hayraysan ha fiirinin dadkaasi kale ee ku dhaafay ha fiirinin keliya ha ku caddaado hadafkaaga iyo meesha aad u socoto kalsooninaadana ku saleysanaato inaad beritoole aad dhaafi kartid sawirka u dambeeya isaguna waxa weeyaan qof baaskiil saaran oo waddo toosan ku socda
kasoo qaad qof baaskiisha saaran in adigu taas wadadaas toosan inay tahay balaanka uu yahay ama qorshaha inuu yahay kasoo qaad calankan waxaa kasoo qaadaysaa inuu goolka ama hadafka ama guushaada meesha ay taalo inay tahay kasoo qaad qof kale isaguna wuxuu ku tusayaa qof baaskiil saaran waa isla adigii oo laakiin wadadii uu mari lahaa caqabadooyin badan ay ka hor istaagan yihiin wado aad iyo aad u adag inay tahay waa ujeedaan inaad guushaasi ama calankaasi ama hadafkaasi aad gaartid waa ay adag tahay waxaa loo jeedaa sawirkan mar walba sida aad wax u qorshaystay wax uma dhacaan balaanka iyo yani qorshaha aad leedahay yani waxaa ka hooseysan caqabadooyin badan iyo challenges badan oo loo baahan yahay inaad ka gudubtid waxaa laga yaabaa inaad si wax u qorshaystay laakiin mar walba aad arkaysid yani sidooda wixii aad qorshaystay inaysan u dhacin so that means waxa bay dad doonta meelaha ku dareystaan way wixii ay qorshaystaan arkayaan yani mar walba aysan u dhacin ama si kale wax u dhacayaan kadib bay isdiibayaan adaa sidaas ma wadada aad marayso ama waxa aad rabtid inaad kolka aad rabtid inaad gaartid waxaad ogaanaysaa in mar walba caqabad ay leedahay in walba baahiyaal cusub ay imaan karaan in mar walba duruufooyin cusub ay imaan karaan laakiin loo baahan yahay inaad u dhabar adeegto oo u samirto oo u dulqaado sidaas ugu gaari kartaa laakiin haddaad rabtid sidii aad wax u qorshaystay hadday wax u dhacaan adiga qof walba sidaas yani wax u dhihi lahayn dadka way guuleysan lahayn soo duruufaha iyo caqabadaha mar walba diyaar u ahow inaad ka gudubtid inaad u dhabar adeegtid inaad ka dhex baxdid oo aad noqotid haryeyga kasoo dhexbaxay caqabadahaasi aad baad u mahadsantihiin halkaan kaasaa kusoo koobaya suulaan badan oo noocan oo kale inaan idinla wadaaga isku dayayaa waa mahadsantihiin nabadiino